waftigan oo ka socda midowga ardayda Soomaaliyeed ee fadhigooda yahay cariga Ingiriiska ayaa waxay socdaal ku soo gaadheen xarunta magaalada Laascaanood gaar ahaan jaamacadda Nugaal University oo mas'uuliyiintan ayaa waxay sheegeen in ay soo mareen jaamacadaha Kismaayo, Muqdisho, Garowe, Gaalkacyo iyo Boosaaso iyagoo sheegay in 9 jaamacadood oo ku yaala wadanka Soomaaliya ay ka bixiyaan arday dhigata waxbarashada jaamacadahaasi ay bixiyaan mas'uuliyiinta jaamacadda Nugaal University iyo ardayda wax ka barata guud ahaan gobolka Sool ayaa waxay si diiran u soo dhaweeyeen mas'uuliyiintaasi iyadoo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan oo ka kala socday ganacsatada gobolka Sool iyo mas'uuliyiinta hay'adaha caalamiga u joogta gudaha magaalada Laascaanood kulan ballaaran oo lagu qabtay hoolka shirarka jaamacadda Nugaal University ayaa waxa ay mas'uuliyiintaasi waxay si weyn uga hadleen in loo baahan yahay in la iscaawiyo kor loo qaado aqoonta waxa isagoo halkaasi ka hadlay mid ka mid ah mas'uuliyiintii ka socotay midowga ardayda Soomaaliyeed Maxamed Sheekh Cali Diin oo ka hadlay ulajeedada socdaalkooda sheegayna in looga baahan yahay ardayda jaamacadda Nugaal iyo ardayda guud ahaan wax ka barata xarunta gobolka Sool inay u istaagaan sidii dadkooda ay wax u bari lahaayeen la isagana kaashan lahaa waxbarashada iyo kor u qaadisteeda Soomaaliya qurux badan oo wax wanaagsan wada oo daaq saaxiibka halka fadhiyo reer Holland ahaan jiray haddana reer Ingiriiska oo kamid yahay gabadhii ugu horreysay oo bilowday 3 sano ka hor markay tir waxaan rabaa inaan arday caawiyo Soomaaliya jooga dadkii waxay dhaheen middan awalba waaba hadayba waa la tababartay aniga waxaan nimid Muqdisho jaamacad Banaadir la yiraahdo ayaa ku taala oo 20 arday scholarship aan siino ama USSIC waan soo baxnay Gaalkacyo 20 arday Gaalkacyo University 20 arday ayaa waan soo aragnay soo laabnay Puntland State University jaamacad la dhaho ayadana 20 ilmood 20 arday ayaa noo dhigta Nugaal University halka maanta joognaa iyana 20 arday ayaa noo dhigta Burco University of Burco 20 arday ayaa noo dhigta oo scholarship USSC ka dhigta maxaa ku xigay Hargeysa 20 arday University of Hargeysa Boorame Amoud University 20 arday Kismaayo University-na 20 arday maxay dadkaas isku yihiin thank you Boosaaso waxa ku taala jaamacad yiraahdo East Africa University waa arday nin waliba ay jeega markuu soo qaato $20 iska gooyo hay'adna ma aha dawladna ma aha dawladii hay'ad midnana xumaan ma aha in wax laga qaato deeq 20 laga gooyay gabadhii aasaastay 20 laga gooyay iyo taageerayaal anigoo kala ah oo aan saaxiibo aan nahay 20 laga gooyay dhalinyaro jaamacad ka dhigtay Ingiriiska 20 laga gooyay kuwa Holland ka dhigtay jaamacad 20 laga gooyay 20kaas ayaa marmar waxa laga yaabaa wax un inay si noqdaan 20ka qof waliba ay waqtiga loogu talagalay oo san keenin markaas waxay sameeyaan street fundraising wax yiraahdo banaanka intay jidka u baxaan iskala qaybiyaan markaas qolo waxay u tagtaa xawaaladaha London ku yaala qolo waxay u tagtaa makhaayadaha London ku yaala qolo waxay u tagtaa hay'adaha aan Soomaaliga ahayn oo London ku yaala qolo waxay u tagtaa muassasaadka khayriga ah oo London ku yaala madaxa shirkadda Telesoomahana gudoomiyaha ganacsatada gobolka Sool Cabdirasaaq Dhibayaco oo ku dheeraaday in jaamacaddu ay maanta marayso marxalado aad u fiican isagoo ku dardaarmay in loo baahan yahay in ardaydu ay ka qayb qaataan waxbarashada ka soconaysa deegaanka iyaduna halkaasi ka hadashay Xaliimo Xasan Cali madaxa hay'adda WHO oo iyadu ugu baaqday in ardayda iyo dhalinyarada jaamacadda Nugaal dhigata ay dardar galiyaan sidii kor loogu qaadi lahaa bilicda iyo deegaanka loona horumarin lahaa arrimaha bulshada gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddida jaamacadda Cabdirasiid Jaamac Biixi oo ku dheeraaday marxaladii ay soo martay jaamacadda Nugaal University ay nooga mahad celinayaan midowga ardayda Soomaaliyeed ee fadhigoodu yahay cariga Ingiriiska socdaalkan ay ku soo gaadheen jaamacadda Nugaal ay kaalin mugla ay ka qaadan doonto sidii ardaydaasi aqoontooda kor loogu qaadi lahaa ay noogu baaqayaan midowga ardayda Soomaaliyeed in ay sii kordhiyaan taageerada ay u hayaan jaamacadda Nugaal ee xarunta magaalada Laascaanood ku taala waxaan soo dhaweynayaa aadna u salaamayaa wafdiga USS inooga yimi wadamada fog ee ay degan yihiin waliba haddana markii ay yimaadeen Soomaaliya Muqdisho ka soo bilaabay in ay maaragtay inala arkaan xaqiiqda jaamacadda Nugaal ee ay taageerada weyn ka geystaan xagga ardada iyo inay maanta isbartaan ardadii ay ka bixinayeen fiiga ee kafaalo qaateen
oo ay mustawahooda arkaan iyo kuwii kale ee walaalahooda ahaa ay wax wada baranayeen maartay isku jaalka ahaayeen ee jaamacadda nugaal wada dhiganayeen inay maanta si xaqiiqa u arkaan marka maanta waad aragteen heerka aanu marayno waxtarkiina horena aad baan idinka mahad celinaynaa safarkiinan kolley wax badan baad la noqonaysaan oo suuqgeyn noo noqonaya haddii ayba qadarkeeda ku leeyahay gobolkani dee kolley gobolada dadka maartay dhaqaaluhuna yar yahay laga hadiyo goor dhalinyaradu ka tahriibto shaqo la'aan ka jirto dad badan oo ayna bixin karin fiiga uu ka jiro intuba weeye marka waxaan leenahay halkii caanaha weeye haddii aad sanadkan tallaabo qaadaan jaamacadda nugaal aad ha loo ogaado cabdikariin olol Somali Channel TV xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool